bal ila qiyaas ninka markii hore laga diiday wixii uu ikhtiraacay ee dib u laabtay soo hormariyay haddana shamiitadii dowladda ay u diiday asaga shamiito samaystay haddana maraykanka uu ka duqeeyay haddana dib u dhisay haddana tii alla ay ku timid ee dhulgariir uu ku dhacay markaasoo kale de qofka dadka qaarkii waa isla hadli lahaayeen ayaan filayaa intaasoo dhan Honda waxay weeyaan isma dhiib بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ولا لي صاحب بيال سو دواada mar kale mid kamid ah waxyaabaha ay wax la qabsan laayeen dhalinyarada Soomaaliyeed waxa weeyaan cudurdaar inta badan ay isku qanciyaan inuu jiro aysan waxba la qaban karin cudurdaarka asaga waxa weeyaan in wadankanaga dawlad ka jirin ama inay dawladda ka jirto ay tahay dawlad daciif ah oo aan ku taageeri karin horumarka ay rabaan inay sameeyaan iyo sidoo kale amni ahaan iyo in dhaqaale ahaan wadanka inuu hooseeyo sida daraadeedna aan waxba la qaban karin haddaba waxaan doonayaa walaalayaal ayadoo arinta ayadaha ay jirto in dawladeena ay daciif tahay meelaha qaarna uusan maamul dawladeed ka jirin sidaas oo kaleetana xaaladda wadankeena dhaqaale ahaan iyo amni ahaanba ay hooseyso ayaan haddana doonayaa in ay la wadaago sheeko aan isleeyahay waxay anfacaysaa dhalinyarada arinta ayadaha ku qancay hankooda ayayna kor u soo qaadaysaa sheekadan waxa ay ku jirtay mid kamid ah buugaagtii aan akhriyay channelkan aan ku soo bandhigay sheekada waxa ay ku saabsan tahay ama ay ka hadlaysaa nin dhalinyaro ah oo u dhashay wadanka la yiraahdo Japan maanta waxa lagu tiriyaa dalalka dunida ugu horumarsan laakiin xilli ay dagaalo ka jireen duqeyna ay ku socotay xaaladoodana ay aad u adkay xilliga asaga ah waa xilligii uu jiray dagaalkii labaad ee dunida waa 1930 Japan waxay kamid ahayd dalalkii la jabiyay ee dagaalkii labaad ee adduunka ka qayb galay xilliga ayada waxa jiray wiil dhalinyaro ah oo la yiraahdo Honda oo 1930 ninka dhalinyarada ah waxa uu aad u jeclaa mechanics-ka ee gawaarida iyo waxyaabaha la farsameeyo ee la sameeyo aabihii ayuuna kala shaqeyn jiray xilligu iskuulka dhiganayay waxa uu galanka dambe kala shaqeyn jiray aabihii garaash yar oo lahayo gawaarida ku sameyn jiray halka ay ka bilaabantay xiriirka asagii gawaarida ama mechanics ka dhaxeeyay Honda asagoo iskuulka dhigto aabihiina garaashka kala shaqeeyo ay waxa uu ku fikiray inuu sameeyo ama uu horumariyo mid kamid ah spare parts-ka ku jiro motorka gawaarida ay soo saarto shirkadda Toyota spare part-ga uu horumarinayay Honda markii waqti badan iyo juhdi badan uu galiyay oo uu farsameeyo oo soo saaray waxa uu u geeyay shirkadda Toyota si uu uga iibiyo dadna waxa ay ku dhaheen ama ay u sheegeen in waxaan uu sameeyay ay ka hooseyso heerkii ayaga ay rabeen Honda isma dhiibin mana niyad jibinay inta laabtay ayuu 2 sano oo dadaal joogto ah bixiyay si uu u horumariyo una gaarsiiyo standardka ay u baahnayd shirkadda ayada ee Toyota labadii sano kadib waxa uu yimid oo uu ku soo laabtay shirkadda Toyota waxa uuna u soo bandhigay spare part-gii asaga ahaa amaba qaybtii kamid ah motorka ee uu horumarinayo waa ay ku qanceen markan waxa ayna dhahan waa ka iibsanaynaa wax badan soo samee noona keen meeshii ayuu ka laabtay waxa uuna ku fikiray inuu sameeyo macmal yar ama warshad yar oo uu qalabka isaga ku horumariyo kuna sameeyo warshadii sameynteeda waxa ay u baahatay shamiitadana xilligaas waxa socday dagaalkii labaad ee dunida dawladda Japan waxa ay kamid ahayd shamiitada badeecooyin ay ku soo rogtay in aan la iibin karin dadka caadiga laga iibin karin kaliya dawladda ay iibsan karto ama ay gadan karto ayna u isticmaali karto diyaarinta saldhigyada iyo meelaha ay ku dagaal tagayaan ama ciidanka uba kaliya u isticmaali karo waxba yana warka idinku daarinayna shamiitadii markii loo diiday Honda ma niyad jabin mana dhihin dawladda kaalmeynaysa ma lahan inta soo laabtay ayuu bilaabay inuu raadiyo qaabkii uu shamiito ku farsameyn lahaa sidaas ayuuna juhdi kale oo dheeraad ah bixiyay waxa ayna sameeyeen asaga iyo tiimkiisii kala shaqeynayay horumarinta warshadda spare parts soo saaraysa waxa ay bilaabeen inay sameeyaan macmal kale ama warshad kale oo yar oo shamiitada sameeyay waana ay ku guuleysteen macmalkiina ama warshadii yareed ee uu rabay inuu spare parts ku soo saarana dhismaheeda ayuu bilaabay dhismaheeda markuu bilaabay oo dhexda u marayo ayaa waxa duqeeyay wadanka Mareykanka
diyaaradihii Mareykanka maadaama labada dal dagaal uu ka dhaxeeyay diyaaradihii Mareykanka ayaa masnicii amaba warshadii yareed uu sameeyay ka duqeeyay duqeynta ayada qaybo badan oo kamid ah masnici ayaa gubtay meeshan waxa weeyaan Honda isma dhiibin ee waxa uu ku fikiray in uu dib u aasaaso una hagaajiyo wixii burburay ee ay diyaaradaha Mareykanka ka burburiyeen kadib markay dib dhismihii u bilaabeen ayna dhameeyeen farta ka qaadeen oo rabaan inay ku bilaabaan hawshii ay ugu talagaleen ay sameeyeen spare partska ayaa waxa Japan ka dhacay oo ay caan ku tahay dhul gariir ayaa masnici dhulka la simay oo burburiyay bal ila qiyaas ninka markii hore laga diiday wixii uu ikhtiraacay ee dib u laabtay soo hormariyay haddana shamiitadii dawladda ay u diiday asaga shamiito samaystay haddana Mareykanka uu ka duqeeyay haddana dib u dhisay haddana tii alla ay ku timid ee dhul gariir uu ku dhacay markaas oo kale qofka dadka qaarkii waa isla hadli lahaayeen ayaan filayaa intaas oo dhan Honda waxay weeyaan isma dhiibin meeshan waxa uu go'aansaday si uusan niyad-jab ugu dhicin mashruucana uusan u istaagin inuuba hal abuurkan uu sameeyay ama spare part-kan uu sameeyay uu ka iibiyo Toyota ayuu u tagay waxa uu u sheegay nimayahow waxa weeyaan iga iibsada wax hartiin siiya qaatana maxaa la dhahaa waa idinka hormariya warshadihiina ku sameeya sidaas ayay uga iibsadeen xoogaa lacagtii uu ka helayna uu iskala laabtay meeshan dagaalkii labaad ee dunida dhamaadkeeda Japan waa la jibiyay wadankan wuxuu galay xaalad dhaqaale oo aad u hooseyso iyo burbur badanna waa uu soo gaaray haddaba waxa dhacday waxa weeyaan in shidaalka la adeegsado ee gawaarida loo adeegsado uu yaraaday wayna awoodi kari waayeen dadka Japanese inay gawaaridooda isticmaalaan oo ay ku soo adeegtaan Honda dadka ayuu ka mid ahaa meeshan ay waxa uu ku fikiray in uu baaskiilka uu wato ee laba lugoodka ah ee badeelaha lagu kaxeeyo oo motor yar inta ku xiro oo sidii gaari u adeegsado motor yar ayuu u hagaajiyay baaskiilka ayuu ku xiray sidii gaari ayuuna bilaabay inuu kaxeeyo kama jiri waagaas mootadan laba lugoodka ah lama aqoonin asaga ayaana wadankiisa keenay wala wadamo kale oo dunida inay ka jirta laga yaabo sidaas ayaa dadkii waxay arkeen ninkan isticmaalayo baaskiilkiisa gaari ahaan dariskii iyo dadkii wadooyinka marayay oo arkay ayaa dhahan anagana noo samee baaskiiladeena motor noogu xir meeshaas ay bilaabeen motorada inta sameeyaan inay baaskiilka ku xiraan ayna iibiyaan laakiin nasiib darro wixii ay u adeegsanayeen sameynta motorada iyo motoradii waa dhamaadeen qalabkiina waa batay meeshan Honda waxa uu ku fikiray inuu sameeyo warshad tii hore maadaama ay ka fashilantay inuu halkan warshad sameeyo soo saarto mootooyinkan caanka ah ee labada lugood leh ee adduunka aad ugu faafsan sidaas ayuu bilaabay dhisidda warshad cusub laakiin dhaqaale ma uusan haynin markan iyo wax maalgelin midna meeshan waxa uu la hadlay dadkii dukaamada lahaa ee baaskiilada gadi jiray ay ku tilmaamayo qoraaga buugga inuu ilaa 18,000 oo maaragtay dukaamo baaskiilada lagu gadaa ayaa ka jiray laguna sameeyo ayuu leeyahay Japan kulli warqado ayuu qoray waaga telefoon iyo waxaan ma jirin casriga ah warqado ayuu qoray inay maalgelin sameeyaan ayna ku yeeshaan shirkad cusub ee mootooyinka soo saarta baaskiilkan horumarinaysa mooto u bedelaysa ee uu sameyn doono 5,000 ayaa u soo jawaabtay kalena qayb qaadatay dhisidii warshad sidaas ayana ku aasaasin warshad soo saaraysa mootooyinka aadna wadanka Japan mootadii waa ugu faaftay inta kaliya ma ahane waxa dhacday in ay isku dayaan inay waliba mootada sii horumariyaan mootada marka hore dadka ladan ayaa gadan karaya maadaama ay aad u weyneed isla markaana waxa galayo oo dhaqaale aad u badnaa ayadii ayay horumariyeen mid yar ayana ka soo saareen oo tan hadda adduunka caalamka ah waxa ayna ku guuleysteen inay mooto yar oo dadka dhan ay gadan karaan ay soo saaraan sidaas ayay mootadii intay faaftay waxa ay ku gaartay ilaa heer Mareykanka iyo Yurub dalabaad uga yimaadaan xaggaasna ay geeyaan Honda meeshan waxa u suura gashay in uu warshadiisii ay faafto adduunka dhanna ay gaarto dhaqaale badanna uu helo meeshan marka waxa uu ka daba tagay hankiisii hore ee ahaa horumarinta gawaarida ee sameeyntooda waxa uu bilaabay in uu soo saaro gawaarida oo shirkad kale oo gawaarida soo samayso ayuu bilaabay inuu soo saaro gawaarida waliba loo adeegsado ciyaaraha ama gawaarida la yiraahdo sport carska ayuu bilaabay inuu soo saaro warshad samayso waa 1970 yadii
waa uuna ku guuleystay shirkadii ayadahayna waxay isu bedeshay shirkad nooc walba oo gaari soo saarto waana shirkadda maanta aad taqaataan aan naqaano ee la yiraahdo Honda ee soo saarto gawaaridan saloonka ee la yiraahdo Accord iyo kuwa kale waliba SUV-ga ee la yiraahdo ay ka mid yihiin Pilot maanta waxaan dhihi karnaa Honda gawaarida ay samayso dunida dhan ay ku faafsan tahay waxaan la sheegaa oo qoraal u leeyahay in 100,000 oo qof ay maanta u shaqeeyaan shirkadda ayada dad ka badan nudiga asaga ah ee hal nin uu bilaabay ee uu dhabar adeegay intaas oo niyad jab ah uu kaga guuleystay ayaa maanta dhaliyay in aan aragno shirkadda caanka ah ee gawaarida soo saarto meeshan walaalayaal waxaan u socdo waxa weeyaan si kasta oo xaaladda dalkeena ay u burbursan tahay si kasta oo dawladdanada ay daciif u tahay si kasta oo kaalmada iyo taageerada aan helayna ay u yar tahay waxaan awoodnaa inaan dhabar adeeg iyo dadaal intaan muujino aan dunida wax weyn ku soo kordhino dunida inaan wax weyn ku soo kordhino ayaan awoodnaa dadkeena inaan anfacno dalkeena anfacno dawlad waxa weeyaan dad isku tagay oo meel degan oo nidaam dhistay dhaqaalana abuuray dadka individualska ah ee reeraha ah ayaa abuuro dhaqaale ee dawladuhu dhaqaale ma abuuraan dawladaha inta badan waxay keenaan ama laga rabaa amniga iyo cadaalad in dadka lagu dhaqo dadkuna dhaqaalaha iyo horumarka ayaga ayaa soo saaro waxbarashada iyo cilmi baarista iyo jaamacadaha ayaga ayaa sameeyo sida maanta waddankeena ka jirto horumar fiican oo badan oo mustaqbal fiican aan rajaynayo inaan leenahay in sida lagu wada adigana iyo anigana aan qayb ka noqono arrinta ayada ah ee ayna noqonin inaan dhahno dawlad fiican ma haysano inaan dhahno dalkeena u burbursan yahay colaadaha ka jiro dalkeena meel badan oo amni ah jiro gobolaha nuskiis dalku amni weeyaan dadka ayaga dhalinyarada ku nool maxaa horumar inay ka shaqeeyaan u diiday sida Honda oo kale dad warshado sameeyo mootooyin baskilo gawaari iyo waliba diyaarado iyo maraakiib inaan sameeyno maxaa diiday maanta waxaan aragnaa in waxa teknoolajiyada adduunka jirto ay dhalinyaro abuureen sidoo kale waxaan aragnaa in waxa horumar adduunka hore loo gaaray ay dhalinyaro sameeyaan anaga ayaana laga rabaa marka inaan dadaalka qayb ka noqono juhdi aan bixino aan iska dayno wahsiga caajiska waqti lumiska iyo waliba inaan qiil isu bixino ah in dalkeena burbursan yahay dadkeenuna ay dambeeyaan dalkanaga iyo dadkanaga waxa horumarin kara kaliya waxa weeyaan dhalinyarada iyo waliba dadka dalka iyo dhulka u dhashay marka aan ka qayb qaadano horumarka walaalayaal aan dadaalno naftana aan ka adkaano aad baad u mahadsantihiin bal wixii sheekada aad ku biirin lahaydeen talo iyo tusaaleyn iyo sixtaan intaba ah hoos inoogu reeba aad baa u mahadsantihiin tan iyo intaan muuqaal kale ku kulmi doono waa walaalkeen Cabdulle Khaliif laakiin intaan muuqaalka dhammaan waxaan idin sheegay buugga asaga ee sheekada ay ku qoran tahay buugga waxaa la yiraahdaa kayfa asbaxu culamaa horey ayaa 3 muuqaal ama 2 muuqaal oo soo bandhigaan jeclahay bilowgii channelka waadna heli kartaan online ka soo jiro Carabi ah saacad Sacuud al-Karimaan ee dhahana Kuwaitiyan ayaa qoray marka siday meel sare ku gaareen ayaan aniga af Soomaali ahaan 3 muuqaal ama 2 muuqaal oo soo bandhigay marka daawasho wacan haddii rabtaan buug akhrisan online ka waad ka helaysaa tan iyo muuqaal dambe intaan ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh